guriga ay ka maqan tahay gabadhi wuxuu yahay madnaan. midhi midkay dhex joogtaana waa u buux iyo barwaaqo eheladooda. talada maanta gabadh yahay adaa leh, maadaama ay tahay maalintii gabadhnimada adduunka. waxaan gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan ku boorinayaa talooyinkan yaryar. la sii wadaag walaasha, saaxiibada, hooyada, gabadhaada, inantiina iyo gabadh kastoo aad taqaano. gabadh yahay, aad u ilaasha deganaanshiyahaaga iyo nabadda gudahaaga. waayo haddii aadan haysan nabadda gudaha, waxba ma noqon kartid, waxba ma baran kartid. adigu cid waxba kuma biirin kartid, adigu cid waxba kuma kordhin kartid. bulshada waxba kama dhex noqon kartid. ilmo tayo lama korin kartid. reerkiina waxba ma tari kartid. reerkaaga waxna ma tari kartid. jidhkaaga iyo quruxdiisa kama adkaan kartid. noloshaada oo idilna waxba kuma biirin kartid, waxna kama saari kartid. sidaa daraaddeed dooro deganaanshiyahaaga. mushkiladaha ku soo food saarana qalin qaado oo qor xalna u raadi muddo yar gudahood. gabadh yahay, raadso oo raadcee meelaha lagugu jecel yahay. ruux kaste oo sida aad u qalanto si ka hoosaysa kuula dhaqmana ha sii jeclaanaysii agjooggiisa. ha ku mashquulin quruxdaada sarayn ka badan inta aad ku mashquuli lahayd qurxinta caqliyadaada. tan micnaheedu maaha quruxdaada duleed ilow, tan gudeedna ku mashquul. waa say isu dheelitir maankorintaada iyo jidhka shaqayntaada si aad uga qurux badato dul iyo hoos labadaba. gabadh walba oo maqlaysa codkayganay hays ilaabin, hays dayicin, hays dullaynin, hays hoosaysiinin, haysla yaraanin oo hays liidin. sida aad isu aragtid ayuunbuu dadkuna kuu arkayaa. gabadh yahay, cilmiga maadiga ah ee aad baratay ka diiniga ah ku ladho si cilmigaagu isu dheelitiro isuna dhammaystiro. caqligaagu kuugu filnaado, habu fakarkaagu u cudoonaado, hadalkaagu uu micno u yeesho. dabar dambiyada kaa xadeeya aad u hesho, akhlaaqdaaduna ay u dhammaystiranto. gabadh yahay, xuquuqda diinta ku siisay tira ku hayso ka hor inta aadan ku doodin in bulshada inta kale xuquuq kaala maqan tahay. gabadh yahay, naftaada danayn gaar ah iyo mid guud labadaba siiso ka hor inta aadan nafa kale ka raadin daryeel, jacayl iyo danayn inay ku siiyaan intaba. xasuusane ma jirta cid ku siin doonta danayn, daryeel iyo jacayl haddii aanad adigu isjeclayn. caadada iyo gabadhnimada. caalamkaad dhex tahay ee ka duwan ka ragga la heshii oo xidhiir la yeela gabadh yahay. caadadu waa wax abuurkaaga ka mid ah, aadan bedeli karahaynin, oo aad haysata ee niyad jab iyo quusa ku qaabilin. gabadhnimadu waa hal adaygnimo iyo dhib qurux badane oo wax noolaanshiyahaaga ka mid ah gabadh yahay, oo aad muddo dheer wada joogi doontaan. waana qasab inaad la heshiisa dareenkeedu. kolka aad aragtaha ka nixin, ha karhin, hana kahanin ee la saaxiib dareenkeeda. aqbal imaanshiyaheeda, kuna mahadnaq oo la dhaqan. waxaanan ku bari doona sida loo adkaado, sida loo sabro, sida dadka kale loo dareemo iyo sida raxmad loo lahaado. waanu dareenkeeda ku siiyaa kal furan, raxmadii ay joogto oo aad quruxda duwanaanshiyahaaga ku muujin karayso. waa ayaamo adag oo aad iska murugoon doontid sabab la'aan, iska niyad jabi doontid sabab la'aan, aad cadhoon doontid sabab la'aan. nolosha oo dhammina ay madow iyo qadhaadh kuu dhadhami doonto sabab la'aan. ee ilaasho wakhtiga aad hesho oo bara si aad isaga warhayso, isula dhaqanto oo aad isu ogaato. indho ka naxariis badan kuwii kolkii hore aad ku eegi jirtay naftaada ku eeg. si qabow isula dhaqan, isu raxmadoo niyad fiican iskula joog. markaaad wax sii og tahay waad isu raxmadi doontaaye. cudurdaar codso, dadka aad ugu dhowdahayna ogeysii. miciyaad wax ku dhaawacdo ayaad yeelan doontaa ogaan la'aane. kolka aad aragta ha ka nixin, ha karhin, hana kahanin ila saaxiib dareenkeeda. aqbal imaanshiyaheeda, kuna mahadnaq oo la dhaqan. caalamkaad dhex tahay ee ka duwan ka ragga la heshii oo xidhiir la yeelo. gabadh yahay, mid baan kaa ilaabay.
ha ilaabin inaad quruxdaada gudeed iyo quruxdaada dibadeed labadaba ilaashato. Quruxda leedoo bilaa dhaqamo dumarnimo ahi waa qurux madhan oo aan lahayn saamayntii ay xaqiiqo lahaan lahayd. Gabadhnimo waa nimcad aysan ogeyn badh badan. Waxaan u arkaa inaysan lahayn gabadhnimadu hal maalin oo keliya, bal ay mudan tahay maalin kaste, cisho kasta iyo xilli walbiba. Rabbi wuxuu inagu sharfay inaguna milkay suurad dhan oo loo yaqaan suuradda dumarka oo ka mug weyn kana heer sarraysa maalinka 8 Maarch iyo wixii la halmaala ee gabdhaha loogu doodo amaba lagu mudnaysiiyo. Waxaan ogahay inay tahay waxa aynu inteena badan sidan ugu quruxda badan nahay uguna heerka sarrayna wiilal iyo gabdhaba gabadhnimadu. oo reerka ay ka maqan tahay gabadhi diifta, daryeel la'aanta iyo danayn-yarida waa laga gartaa korkiisa. Agjooggeeda walaalnimo waa dareen naxariis. Agjooggeeda gabadhnimona ninkeeda waa u nabad, xasilooni, deganaanshiyo iyo diirimaad. Guriga ay ka maqan tahay gabadhi wuxuu yahay madnaan. Midhimidkay dhex joogtaana waa u buux iyo barwaaqo eheladooda. Inan kastoo dhegaysanaysaa, ilaasha naftaada, ilaasha jidhkaaga, ilaasha midabkaaga, ilaasha basharadaada, ilaasha xasiloonidaada, ilaasha nafsiyadaada, ilaasha farxadaada. Iska ilaali xusunka, murugada, farxad la'aanta, warwarka, wax kasta oo nafsiyadaada dhibaato gaarsiin kara. Waxaad ogaataa inuu dibad ahaan ku saameyn doono. Markastood faraxsanaato, waxaad ogaataa in basharadaada iyo jidhkaaga iyo midabkaaga intuba ay qurux badnaan doonaan, in skinkaaga iyo basharadaadu dhalaali doonto. Markastoonad faraxsanayn guud ahaan, markastoonad dareemahaynin niyad sami oo aanan niyad samayn, ogow waxa ay ka go'an tahay dibadaada oo wax adiga kaa go'an. wana mas'uuliyad ku saaran inaad adigu jidhkaaga ilaashato, inaad adigu hilibka iska ilaaliso, inaad lahaato jir qurux badan oo aad adigu waqti iska dhiso, inaad timahaaga ilaashato, inaad nafsiyadaada ilaashato, ruuxdaada inaad ilaashato, maskaxdaada inaad ilaashato, caqliyadaada inaad maal gashato. waa mas'uuliyad adiga ku saaran. marka adiga naftaada ma heli ajli cid kale, maaha cid kale darteed waxaad u samaynayso. yiisan noqonin inaad naftaada jeclaatid, inaad naftaada qadarisid, inaad jidhkaaga wixii hilib ah ee miisaankaaga fool xumaynaya, ee caafimaadkaaga waxyeelaya, ee ku gaboojinaya inaad iska tuurto, inaad iska ilaaliso. waa waxaad adigu u baahan tahay. adiga naftaada darteed waxaad jeceshahay u samee, dareemkaaga u dhabee, riyadaada u yeel, u samee, meeshaad doonaysid u gaadh, li'annoo adiga u baahan inaad gaadho. uma baahnid inaad dadka istustid, uma baahnid inaad dadka iska dhaadhicisid, uma baahnid inaad dadka kasbatid. naftaada priority-ga sii, naftaada number 1 ka dhig, laakiin yay kaa noqonin xadka aad isqiimaynayso, xadka aad gabadhnimadaada ilaalinayso, xadka aad naftaada jeceshahay kibriya iyo isla weyniyay ku gaarsiinin. isjeclow, is ilaali, isu naxariiso. ayaamaha dareentay nafsiyadaada iyo muudkaagu aanu wanaagsanayna, dooro deegaanka iyo dadka aad ku ag xasili karayso. dooro meesha aad nafis ku dareemayso, dooro meesha aad deganaanshiyaha ka helayso, dooro meesha maskaxdaadu ay ku habi noqonayso, dooro meesha aad maskaxiyan ku caafimaad qabi karayso. dooro farxadaada. gabadh baa tahay, gabadha waxaa lagu talagalay in salaam, nabad agteeda lagu dareemo. taalkaaga qof kasta oo aad la dhaqmayso, cid kasta oo aad la macaamilayso, cid kasta oo aad la nooshahay, isku day inay nabad agtaada ka helaan, isku day in xasilooni agtaada laga helo, isku day in farxad agtaada laga helo. adiguna raadso meelahaad farxad, xasiloonaan iyo deganaanshiyaad ka helayso. kaa gabadh walayba is ilaali, isjeclow, isqadari, farxad isisii. dadka ku hareer ah, biicadda aad la nooshahay, dadka aad la dhaqmayso iyo inta dhinacaaga joogtaba, isku day inaad gabadhnimadaada ku bisho. adigana wixii doorashadaada ku xidhan, ku dadaal inaanad naftaada waxba ka hagranin. wixii wanaagsaneed naftaada u doori karayso, isku day inaad naftaada u doorto.
xalqadan intaasan kaga tegayaa gabar kasta oo dhageysanaysa waxaan ku leeyahay naftaada ilaasho.